Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee dunidan laga diiwaangeliyay ayaa waxa uu ka dhacay suuq ka mid ah kuwa alaabta iyo waxyaabaha taariikhda ku suntan lagu kala iibsado dalka Ingiriiska, halkaasoo sida taariikhda lagu xardhay uu ganacsado u dhashay dalka Greek uu kumanaan dollar oo lacag ah kaga iibsaday xabad buskud ah oo boqolaal sano ka hor la sameeyay. Suuqa Henry Lodge ee magaalada London ayaa waxaa ka dhacday xaflad lagu naadinayo waxyaabo ka mid ah alaabtii laga soo badbaadiyay markabkii Titanic ee sanadkii 1912 ku qarqoomay badweynta Atlantiga. Inkastoo xaraashkan lagu iibsaday alaabooyin kala duwan, haddana waxa ugu la yaab badneyd xabad buskud ah oo uu sitay qof ka mid ah dadkii laga soo badbaadiyay markabkii Titanic oo ganacsade u dhashay dalka Greek uu 23,000 oo dollarka Mareykanka ku iibsaday. Halkan xabba ee buskudka ah ayaa sida la sheegay waxay ka mid ahayd buskud uu qof ka mid ah rakaabkii Titanic ka iibsaday moofo ku taala magaalada Southampton ka hor intii aanu markabku ka dhaqaaqin magaaladaasi. Waxaanu ninkaasi nasiib u helay inuu ka mid noqdo dadkii ka badbaaday shilkaas, waxaanu dharkii iyo wixii uu haleelay ee la soo badbaadshay uu ku xafiday gurigiisa, kadibna waxa uu ka iibiyay dadka isku ururiya alaabooyinka taariikhiga ah ee marka dambe ka macaasha. Qiimaha loo malaynayo inuu siiyay ama qofkaasi ku iibiyay buskudkan oo ahaa noocyadii moofooyinka lagu dubi jiray ka hor intii aanay warshaduhu soo bixin ayaan ka badnayn dhowr senti oo dollarka Mareykanka ah. Ha yeeshee waxa uu ganacsadahani ku iibsaday 23,000 oo dollar, taasoo fajac ku riday dad badan oo dunida ku nool. Ka sokow qiimahan caadiga ahayn ee la siistay xabaddan buskudka, waxa dadku aad ula yaabeen in ganacsadaha iibsaday buskudkan raqiiska, waxaana dunida oo dhami maskaxda ku wada haysay dhaqaale burburka iyo busaaradda ka jirta dunida iyo sida lacagta ugu loo farayo ganacsadahani. Waxa kaloo ay dadku aad uga yaabeen sida dhibta yar ee shirkaduhu uga macaashaan qalabyada taariikhiga ee lacagta aan macnaha lahayn ay ku iibsadaan marka hore, kadibna ay malaayiin dollar kaga macaashaan. Waxa xaraashkan lagu kala iibsaday 120 shay oo ka mid ah waxyaabihii dadkii laga badbaashay shilka Titanic ay xidhnaayeen ama ay siteen iyo kuwii markii dambe markabka laga soo saaray.